السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومحسنتين muuqaal kan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago madaxweyne Trump oo maanta amar ku bixiyay in la joojiyo DV lottery sababta keentay in amarkaasi uu bixiyo madaxweyne Trump waxay tahay nin ku yimid DV lottery oo dhibaatooyin geystay dad dilay darteed ayaa arintaasi loo sababay ninkaasi muxuu yahay gormo wadanka yimid halkee toogashada uu ka geystay yuu dilay asagii ma la qabtay arrimahaasi oo idil ayaan rabaa bal inaan idin la wadaago sidoo kalena wasaaradda cadaaladda caawa saqda dhexe 12 saqda dhexe oo habeenimo ayaa waxa ku ekeyd waqtigii loo qabtay in ay Epstein files ay ku soo fasaxaan hadda saacad ka hor waxay bilaabeen in ay shaaca ka qaadaan Epstein files wasaaradda cadaaladda website-keeda ayaa qayb waxa ay ka sameeyeen la yiraahdo Epstein library halkaas oo ay ku soo bandhigayaan dhammaanba faalalka Epstein oo ay gacanta ku hayaan arrimahaasi ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada madaxweyne Trump ayaa waxa uu maanta amar ku bixiyay in gabi ahaanba la joojiyo DV lottery-ga waxaan ognahay Mareykanka waxa ku imaan jiray dadka immigration-ka uu hooseeyo Mareykanka imaada Congress-ka ayaana waxay ansixiyeen sharci la yiraahdo Immigration Act sanadkii 1990 ilaa iyo 55,000 oo qof oo daafaha caalamka ka imaanaya ayaa sanad kasta ku imaan jiray DV lottery ama baqtiyo nasiibkaasi oo wasaaradda arrimaha dibadda ay rangareyso marka dadku ay soo dalbadaan computer ayaa si random ah u soo qabanaya baqtiyo nasiib ahaan dadka uu u soo baxana waxa la shaacin jiray bisha shanaad ee sanad kasta markaas kadib ayaa processkooda dadkaasi uu bilaaban jiray sanadkan sidii la filayo inta badan uu furmi jiray bisha October ee 10aad bisha November uu xirmi jiray horaanteeda ma uusan furmin marka rajo ayaa laga qabay in dib loo furi karo laakiin madaxweyne Trump ayaa maanta amar waxa uu ku bixiyay gabi ahaanba in hakad la gariyo ama la joojiyaba DV lottery-ga sababtuna maxay tahay wasaaradda amniga gudaha wasiirkeeda Christine Noem ayaa waxa ay barta ay X ku leedahay wasaaradda amniga gudaha ee Homeland Security-ga waxa ay ku soo qortay madaxweyne Trump waxa uu mar kastaba u dagaalamayay muddo sanado ah sidii gabi ahaanba meesha looga saari lahaa oo loo baambi'i lahaa DV lottery-ga oo ah mid khatar ah sidaas darteed waxay tiri sanadkii 2017 madaxweyne Trump waxa uu Congress-ka ka dalbaday in gabi ahaanba la joojiyo barnaamijkan kadib markii argagaxiye ka tirsan ISIS oo DV lottery ku guuleystay uu dilay 8 qof kadib markii taraag uu watay uu New York uu ku dhuftay goob isla markaana halkaasi ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 8 qof wasiirka amniga gudaha waxay sidoo kale sheegtay in sanadkii 2017 ilaa 2021 intaasi oo madaxweyne Trump uu ahaa in uu taageeray sharci la yiraahdo Race Act kaasi oo gabi ahaanba meesha looga saarayo DV lottery-ga isla markaana la sameynayo merit based immigration waxaana sidoo kale ay sheegtay arintaasi xubnaha Congress-ka ee dimuqraadiyiinta inay ka soo horjeesteen waxa sidoo kale ay sheegtay sanadkii 2019 in madaxweyne Trump uu qasab ka dhigay dadka DV lottery-ga xariisanayo in passport ay leeyihiin arintaasi oo jirtay dadkii xariisanayay arintaasi oo sheegtay sidoo kale inuu garsoore ka hor yimid sanadkii 2020 waa uu joojiyay madaxweyne Trump gabi ahaanba DV lottery-ga in la process gareeyo si loo yareeyo qatarta dadka Mareykanka ku imaanaysa oo dadka Mareykanka loo difaaco waxaana ay sheegtay in Biden markii uu xilka la wareegay kadib uu dib u furay ama u ogolaaday DV lottery taasi oo mar kale sababtay in dad fara badan ay ku yimaadaan isla markaana dad badan oo Mareykan ah dad ku yimid DV lottery-gaasi Mareykanka ay dilaan marka sababta keentay hadda DV lottery-ga in madaxweyne Trump uu amro in la joojiyo ayaa waxa ay tahay axadii la soo dhaafay jaamacad la yiraahdo Brown University oo ku taala Providence Rhode Island ayaa waxa jiray nin inuu toogasho ka geystay ninkaasi waxa uu dilay 2 arday 9 kalena waa uu dhaawacay labada arday uu kala dilay gabar cadaan ah oo Ella Cook la yiraahdo iyo wiil muslim ah oo la yiraahdo Muhammad Aziz Umursakov oo wadanka Uzbekistan ka yimid jaamacadana waliba aan bilaabin oo hadda goordhow yimid oo isdiiwaan galiyay ayaa ku geeriyooday ninkaasi muddo asbuuc ah ayaa la raadinayay axadii markii toogashadaasi jaamacada uu ka geystay waxa uu aaday haddana gobolka Massachusetts waxa uu dilay nin sidoo kalena professor ah oo waliba saynisahan dhinaca nuclear-ka ah oo magaciisa la yiraahdo Nuno Loureiro oo jaamacadda MIT professor ka aha ninkaasi iyo waliba ninka dilay waxa la leeyahay isku galaas ayay ahaayeen wadanka Portugal ayuu ka yimid ninka toogashadan geysanaya DV lottery ayuuna Mareykanka ku yimid sanadkii 2017 xilligaasi Trump ayaa wadanka madaxweyne ka ahaa
marka ninkan professorka uu dilayo iyo isaga isku galaas ay Portugal ay ku ahaan jireen wadanka Portugiiska 1995 ilaa iyo 2000 marka inay isgaranayeen ayaa loo maleynaya ninkan dilka geysanaya magaciisa waxa la yiraahdaa Claudio Manuel Leves Valente waa 48 jir waxa la leeyahay bishii la soo dhaafay ayaa gobolka Massachusetts uu tagay waxana uu soo ilaaleystay ninkan professorka gurigiisa jaamacadda xilliga uu yimaado marka gurigiisa hortiisa oo Brooklyn Massachusetts ku yaala ayaa habeennimadii waxa uu ku dilay isniinta ahayd marka booliska iyo FBI-da gabi ahaanba waxay raadinayeen muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya toogashadan ka dhacday jaamacadda Brown University oo ku taala Providence Rhode Island iyo dilka professorkan ka dhacday gobolka Massachusetts marka si la isugu xira ayaa la raadinayay ninkan sawiradiisa ayaa la soo bandhigay laakiin qamiistii ayaa qof la kulmay ninkan ka hor intii uusan toogashada jaamacadda ka kaysan uu booliska la soo xiriiray waliba FBI-du $50,000 ay dul dhigeen qofkii gacan ka geysta ninkan soo qabashadiisa iyo in dambi lagu helo marka ninka qofkii marqaatiga ah markii uu booliska la kulmay waxa uu sheegay ninkan inuu la kulmay in wajigiisa ayaa la helay gaari uu kireystay ayaa la helay cadeymo la xiriirinay oo dharkii uu watay markii toogashada jaamacadda uu ka geysanay ayaa la helay sidaasi ayaa marka dabagal gaarigii uu kireysto loogu sameeyay ugu dambeyntiina ninkan shalay ayaa meydkiisa waxa laga helay waa uu isdilay gobolka New Hampshire meel storage oo isagu kireystay ayaa meydkiisa laga helay isaga ayaa xabad isku dhuftay waxa laga helay 2 qori iyo qaar kamid ah cadeymo la xiriirinaya in toogashadii jaamacadda ka dhacday maadaama kaamirooyin ay qabteen oo dharkii uu watay iyo qaabkii uu istaagnaa iyo gabi ahaanba la soo bandhigayay marka ninkan sidoo kale jaamacadda Brown University waxa uu ka ahaa arday intii u dhaxaysay 2000 ilaa iyo 2001 jaamacadda toogashada uu ka geystay ayuu dhigan jiray marka nin jaamacadda aqoon u leh ayuu ahaa xitaa qaybta toogashada uu ka geystay qayb kaamirooyin ay ku xirnaayeen ma ahayn marka waa garanaya ninkan meelaha la geli karo iyo meelaha aan la geli karin sidaas marka ayaa ninkaasi shalay la ogaaday in uu isdilay isla markaana hore 3 qof ayuu isagu u dilay oo professorku uu ku jiray labadaas arday oo jaamacadda Brown University oo Providence Rhode Island ku taala 9 ardayna waa uu dhaawacay oo qaarkood wali isbitaalka ay ku jiraan 7 kamid oo waliba xaaladoodu ay halis tahay haddaba marka madaxweyne Trump ma joojin karaa DV lottery hore waa uu joojiyay waan ognahay Trump hadda markii uu xilka la wareegay muddadii 12 bilood sharciyo badan oo Congressku ay meel mariyeen oo ay kamid tahay hay'adda USAID ayuu gabi ahaanba baabi'iyay marka garsoorayaal fara badan ayuu iska dhigay amarkooda marka sida muuqata dad fara badan waxay leeyihiin Trump ma joojin karo laakiin hadda amar ayuu ku bixiyay gabi ahaanba DV lottery in la kansalo waxa laga yaabaa xitaa in hadda dadkii ku yimid sanadihii u dambeeyay Biden intii uu madaxweynaha ahaa DV lottery oo green card haysto in loo yeero ayagana dib baaritaan loogu sameeyo ama xitaa interview laga qaado 24kii bishii hore waxaan ognahay markii ninkii ka yimid Afghanistan labadii askari uu ku toogtay caasimadda Washington DC oo Afghanistan in la joojiyay green cardka la process gareeyo dadkii uu xareysnaa dadkii ballamaha lahaa waa tii la joojiyay asylumkii migratonkii dadkii baasaboorada la rabay in la dhaariyo qaxootigi waxyaabo fara badan waa tii la joojiyay marka Trump hadda waxa uu leeyahay arrintanna waa mid ugu dambeysay qof DV lottery ku yimid ayaa muwaadiniin Mareykana iyo waliba dad kale oo ajnabi ah oo wadanka waxbarasho u yimid in sidoo kale halkaasi ku dilay marka arrintaasi ayaa jirta Trump amarkaasi ayuu bixiyay in gabi ahaanba hadda DV lottery la joojiyo walow sanadkan ba aysan jirin dad xareystay oo arrintaasi gabi ahaanba hakad ay ku jirtay oo la isdhahayay dib ma loo furi doonaa mise lama furi doono maanta caawa saqda dhexe 12 saqda dhexe ama caawa 6 saac waxa ku ekayd waqtigii wasaaradda cadaaladda loo qabtay in ay soo fasaxdo Epstein files hadda waxa ay bilaabeen saacada ka hor in website-ka wasaaradda cadaaladda oo la yiraahdo justice.gov ay uga sameeyaan qayb la yiraahdo Epstein library halkaas inay ku soo bandhigaan faylalkii laga doonayo marka aad ay u fara badan yihiin shacabkuna hadda access ay u leeyihiin inta ay galaan ayay arki karaan marka sawirro fara badan kuwa hore loo soo bandhigay iyo kuwa cusubba waa la soo bandhigay laakiin context-ka ayaa laga reebay maxay yihiin sawirrada qofkii waad aqoonsan kartaa laakiin magacyadii wixii dhan waa laga reebay marka waxa la leeyahay hadii ay sawirrada amaba amarkii madaxweynaha iyo Congressku maadaama sharcigaas ay meel mariyay hadii wasaaradda cadaaladda ay u hogaansami wayso xitaa wasiirka cadaaladda waa lagu dacweyn karaa ama dadka kale ee ku lugta leh marka waa ay bilowday wasaaradda cadaaladda inay shaaca ka qaado Epstein files marka saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda waxa la arki doonaa sawirro kala duwan oo kamid ah
kuwii Epstein files oo la doonayay in shaaca laga qaado marka aad ayay u fara badan yihiin shalay waa tii qaar ay xubnaha dimuqraadiyiinta ah ee ku jira guddiga la xisaabtanka ee Congress-ka ay soo bandhigeen toddobaadyadii u dambeeyeen ay soo bandhigayeen marka gadaal ayaan idinka soo gudbin doonaa haddii ay jiraan sawirro iyo waxyaabo la xiriirinaya Trump in Epstein uu xiriir toos ah la lahaa walow ay jiraanba in la ogyahay labada nin inay xiriir wada lahaayeen laakiin wax Trump ceeb weyn ku ah haddii ay soo baxaan waa la arki doonaa laakiin Trump maadaama uu ogolaaday xitaa madaxiisa shaqaalaha waa tii sheegtay 2 maalin ka hor markii waraysi Vanity Fair ay siisay inay jiraan Trump wax la xiriirinaya Epstein laakiin aysan jirin wax sumcadiisa halis ku ah marka wayna arki doonaa waxna la FBI-da ayaa horay uga reebtay wax kasta iyo wasaaradda cadaaladda oo Trump qatar ku ahaa Epstein fileskan marka waxyaabaha ka soo kordhay waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantahay nabadgelyo